waxaan ku bilaabayaa magaca Eebe, naxariista guud iyo mid gaar ahaaneedba leh. Mahad ideelkeed Eebe weyne u sugnaatay. Nabadgelyo korkiina ha ahaatay iyo naxariista Eebe. Wacnaan idilkiinba meel walbo aad dunida ka joogtaan, kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta oo aynu diiraddu ku saari doono waxbarashada iyo aqoontu. Aan bal ka bilaabo kolkuu Eebe weyne uumay Nabiyullaahi Aadam calayhi salaam si uu dhulka khaliif ooga noqdo. Nebi Aadam wuxuu Eebe weyne siiyey aqoontaas oo ka horreysay waxbarasho. qaala tacaala wacallama aadama alasmaa'a kullaha thumma caradahum cala almalaa'ika faqaala anbi'uunii biasmaa'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin. malaa'igta ayaana Eebe weyne ugu jawaabtay, qaaluu subxaanaka laa cilma lanaa ilaa maa callamtanaa innaka anta alcaliimu alxakiim. waana sababta uu ilaahay ugu amray malaa'igtiisa inay u sujuudaan nabiyullaahi aadam calayhi salaam, kamana dhignayn inuu malaa'igta ka tasbiix badnaay, balse ay ahayd cilmigaasi uu Eebe weyne siiyey. nabiyullaahi maxamedna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, kolkuu Eebe weyne maka ka soo saaray, carabtii iyo dadkii halkaasi ku noolaa waxay ahaayeen ummiyiin, waxbarasho iyo aqoon midna aysan ka jirin. sidaasi darteed ayaa kolkuu Eebe weyne u waxyoonayay nebigiisa nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, wixii ugu horreeyey ee lagu soo dejiyey ayaa waxay ahayd iqra bismi rabbika alladii khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam, oo ka hadlaysa wax akhrin, wax qoris, waxbarasho iyo aqoon. afartii suuradood ee qur-aanka ugu horreeyey ee soo degana waxay ka hadlayeen wax akhrin iyo wax qoris, waana suuratulcalaq ee iqra iyo suuratulqalam nuun walqalami wamaa yasturuun. aan haddaba u nimaano tacriifaha ay aqoontu leedahay. aqoontu waa labo: cilmi asalkiisu fahan sax kaaga baahan laakiin asaga aanan shaki lahayn inuu xaqiiqo yahay, iyo cilmi ku salaysan wax yaroo la gaaray, wax badanna ka maqan yihiin oo aanan dhammaystirnayn. si kale aan u dhigo, waa waxyiga alle iyo sunnada suubanaheena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, iyo aqoonta noolaha iyo jiritaanka koonka dhammaantii ku salaysan. waxbarashaduna waxay ka koobnaataa saddex: wax akhris, wax qoris, maqal iyo dhegaysi. tacriifta waxbarashada iyo aqoontu aan balballaariyo. aqoonta dunida taalla ee bini aadam uu barto waa saddex nooc. midda koowaad waa culuum asiyaadiya, waa aqoonta dunida lagu hogaamiyo, taasina cidna isma barto, waana basaasida dunida meesha ay ka dhacdo. ma ahan basaasida aan ka hadlayno dhanka amniga iyo wixii lamid ah, ee waa midda ku salaysan raadinta cilmigaasi ee culuum asiyaadiyada ee dunida lagu hogaamiyo. waana cilmiga ku salaysan samaynta nukliyeerka, samaynta gantaalaha ridada dhaadheer oo kaleento, culuumta tiknolojiyadda gaarka ah ku salaysan iyo wixii lamid ah. aqoonta cilmigaasi ku salaysanna wadan ma siiyo, cid isa siisa malaha, waa un la kala xadaa. tusaale, wadamada quwadahana caalamka sida maraykanka iyo ruushka iyo china, muxuu midba midka kaleento cunuqabateen iyo isburbursi iyo isdabajoog isugu hayaan? waa un iskala basaasida cilmigaasi lagu hardamayo. wadamada aanan awoodda lahayn iyo tabarta, ayagana waaba loo diliba oo waaba loo burburani. ciddii lagu maqlay inay cilmigaasi gaartay ama rabtay inay samaysato, wadankaas oo dhan dukum daakum ayaa laga dhigi, waana lagu duuli. tan tiknolojiyadan, shirkadaha dunida ugu waaweyn, shirkad kaleenta sirteeda hayso ma jirto. tusaale yar, volvo iyo afeeka iyo scania iyo mercedes iyo shirkad weliba sirteeda ayay wax ku soo saarataa. labo waa culuum alhuwiya, waa aqoonta jinsiyadda, waa midda diinta, dhaqanka, afka, taariikhda, qiyamka iyo akhlaaqda. waa aqoonta cid kastahi ay jeceshahay cidda kale in ay ku faafiso, ha ahaato midda diimeed, tan dhaqan iyo midda luqadeedba. wadan walbana waxbarashadiisa rasmiga ah waxa ay ku salaysan tahay in ay qadiyadahaasi ilaashadaan. hadday ahaan lahayd nidaamka tacliimiga ee waxbarasho, kan miidiyaha ee warfaafinta, kaljarka iyo dhaqanka, qaanuunka iyo wixii lamid ah. 19 wadan ee dunida ugu horeeyo, wadan weliba afkiisa ayuu wax ku dhigaa. 500 ee jaamacadood ee dunida ugu horeysana, mid weliba afka wadankeeda ayaa wax lagu dhigtaa oo lagu bartaa. tambiih yar oo ku saabsan ka annaga Soomaali ahaan, halkee ka joognaa qodobkan? jaamacadaha wadankeena Soomaaliya ku yaala guud ahaan waa tiro yar kolka loo eego ka shacab ahaan, ka population ahaan, halka wadamada kale ee dunida kolka jaamacadahooda loo qeybiyo shacabkooda, tiro ahaan ay kusoo aadaysa jaamacadiiba arday yar. hay-adda cilmi baarista ee Heritage warbixin ay kasoo saartay guud ahaan jaamacadaha dalka inta ay yihiin iyo ardayda dhigato, lagana jaro populationka guud ama shacabka guud ee wadanka, waxbarashada iyo halka aan ka joogno. nasiib xumidaasi iyo ayaan daradaasi waxaa kasii daran, jaamacad weliba waxay wax ku bixisaa luqad qalaad oo ah luqada ingiriiska. hal jaamacad oo uu wadanka leeyahay oo luqada dalkeeda ama afka wadankeeda wax ku dhigto arki maysid. 3 waa culuum almushtarik bayna annaas, waa aqoonta dadkoo idile uu wadaago, hadday tahay maamulka, siyaasadda, dhaqaalaha, injineeriyadda, sayniska, caafimaadka iyo wixii lamid ah. marka aqoonta hogaaminta
warbaahinta dunida waddan weliba dadkiisa uu ku kalsoon yahay oo welibana dad gaar ah ayuu baraa halka labada dambe la isku lariyo oo la isku milo. sidaasi ay tahay darteed ayuu haddana waddan weliba ku ilaashadaa hooyadiisa iyo ahaanshihiisa, jiritaankiisa jinsiyadeed, dhaqankiisa, qiyamkiisa, afkiisa, taariikhdiisa iyo diintiisaba. haddaan waxbarashada iyo aqoonta tacriifahaasi kala duwan aan kusoo sheegnay aan haddana u nimaano tacriifta UNESCO ee u taqaanaa aqoon. UNESCO aqoontu waxay u taqaanaa wax kasta oo taxta tajriba walxisa galo. waxa ayna aaminsan yihiin waxyiga inuusan ahayn aqoon una jirin aqoonta. tacriifta gaalada ay diin ka yiraahdeen iyadana aan fiirino. intay 100 tacriifood qoreen ayay waxay yiraahdeen diin waa shay kasta oo aanan xaqiiqada waxba ku lahayn. waxa ayna ku tilmaamaan wax kasta oo khuraafaad ah in ay tahay diin. kol hadday saas tahay culumta iyo macrifada islaamka ahi laba mid kama hor imaato. xaqiiqo kowni ah oo uunkani ka jirto kama hor imaanayso. caqli sax ah oo caafimaad qabana kama hor imaanayso, sababtoo ah caqliga rabbi baa abuuray, koonkana rabbi baa xaqaa'iqdiisa uumay, sharcigana eebbaweyna soo dejiyo oo isku meel ayay ka wada yimaadeen. qaala tacaala fii muxkami tanziilihi huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun hunna umulkitaabi wa ukhra mutashaabihaatun faama aladiina fii quluubihim zaygun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. بل صمدب ويسو جرتي ددك آنن شريعة آمن سنين أما بآنن كورقبن إن أي راهدان أقونت إيا تجربة آدمه إيا الدنيا إيا كونكن أي كبرتان إيا وحيق ويكالدوين يهين أو يسكهر إيمانيان. وصدق الله إذ قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. bal haddaba aan u nimaano malahoodaasi ah in waxyiga iyo tajaaribta aadamuhu ee adduunyada iyo koonka ay ka barteen in ay iska hor imaanayaan. waxaana sabab u ah qof nusuusta sharciga ah aanan wada xasuusanin ama aanan wada garanaynin. hal aayad ah intuu arko dhaho tanay ka hor imaanaysaa, ama fahanka shareecada inuu si khalad ah uu u fahmay. sharciga sida uu yahay iyo adiga sida aad u fahanto fahankaaga ayay wax ka khaldami karaan. labo, wax aanan bani aadamka agtiisa macrifo iyo aqoon sax ah aanan ahayn oo aanan fadhinin amaba aanan dhammaystirnayn in la yiraahdo waa aqoon sharciga ka hor imaanayso. qaala tacaala wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila. eebbaweyne kolkuu nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee la hadlayay wuxuu yidhi, dheh nebi maxamedow eebbow cilmi ii siyaadi, waqul rabbi zidnii cilmaa. aqoonna waa tan adduunkana wax tarto aakhirana wax tarto. sidaasi darteed ayuu nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee subax walba ku ducaysan jiray, allahuma innii أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. إلهيو waxaan ku weydiistay cilmi nacfi leh iyo camal la aqbalay iyo risiq wanaagsan oo xalaal ah. waxa uuna eebbaweyne ka magan geli jiray cilmi aan waxtar lahayn, qalbi aan khushuuc lahayn, naf aanan dhargeyn iyo barya aanan la aqbalaynin. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena dhegaystaha daawadaha qiimiga badano adduun haddaad doonaysid wax baro, aakhiro haddaad doonaysidna wax baro. subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasifuun wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.